galab wanaagsan dhegeystayaal waa galabnimo axad ah taariikhda ay ku beegan tahay 14 bisha lixaad sanada 2015 galab walba oo axad ah barnaamijka kulanka dhalinyarada idaacadda Simba waxa aad ku maqashaan xubinta taariikhda fanaanka galabtana barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan taariikhda fanaanada Faadimo Maxamed Xasan Faadimo Shiina oo ku sugan dalka Holland wareysi dheer oo kaga hadlaysa taariikh faneedkeeda ayaa barnaamijka kulanka dhalinyarada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxa idin soo saaray halkaan idin soo siinaya aniga oo ah Cabdiraxmaan Ibrahim Cali Drag Faadimo Shiina waxa aad ku soo dhawaataa barnaamijka kulanka dhalinyarada idaacadda Simba waa dhawahay aad baan u mahadsantahay waayahay Faadimo waxa aad warbixin iga siisaa fankigiiba xagga aad ka soo gashay fanku waxaan ka soo galay horta magaalada Muqdisho markii ugu horeysay wuxuu ku bilowday qayb qoraalka erayada ayaan qori jiray markii dambena waxaan noqday inaan isku dayo inaan noqdo fanaanad waxaan inaan heeso bilaabay 1997 Allah naxariista wuxuu ahaa macallinkii fanka nin la yiraahdo Cabdullaahi Leylon oo heesii ugu horeeyay balse albumkii koowaad oo soo baxay 1998 waayahay marka albumka ugu horeysay xagee ku qaaday albumka ugu horeeyay waxaan ku qaaday magaalada Muqdisho 1998 waxa ii tumay ku xiriirado Banaadir Star oo horjoogo waa xilligaas Cabdullaahi Imaan heeskii ugu horeysay marka heeskii ugu horeysay magaceedu waxa la yiraahdaa Nasiib waxay ka mid ahayd albumkayga Fariin Jacayl waayahay heeskii ugu horeysay Nasiib bal erey ka mid ah maqashaan iyo dhageystayaasha heestas waxay u dhacaysay sidaan nasiibkii xumaa diyo عشق مفتوح واللي وين بناسا نصيبكي حما ديو عشق مفتوح واللي وين بناسا hadda maadaama inta badan la isticmaalo YouTube ay ku jirtaa iyadoo muuqaal ah waayahay Faadimo Shiina badan ayaa isweydiinaya waxa ay leeyihiin Faadimo xagee ku nooshahay ma fanaanada cusubba ma fanaaniintii horeba dadka qaar aqoon kuma lahan horta aniga ma fanaanad cusub waxaan ahay fanaanad in muddo fan ku soo jirtay ku dhawaad 20 sano teeda kale waxaan ahay abwaanad heestan hadda aan ku sheegay heeso badan ba aniga qoray inta nasiib albumkayga Fariin Jacayl wada qoray albumkoodan waa gatay ma jiraan marka Faadimo heeso kale aad adiga aad curisay isla markaana dad kale ay qaadeen adiga aad u dhiibtay way jiraan fanaaniin fara badan oo dhiibay hees aniga aan qoray waa ku sheegi karaa hees ahaan iyo fanaaniinta qaaday intaba bal yaa ka mid ah fanaaniinta adiga heesaha aad u sameysay isla markaana aad u dhiibtay waxa ka mid ah fanaan weyn oo Abdi Cabdi Baadil Ibrahim Liiraad iyo yaqaanaan Soomaaliyeed inta badan waxa ka mid ah Maxamed Aqdal Urshe waxa ka mid ah fanaan reer Jigjiga Liiraad Cali Dhaanto oo hees talantaale wada qaadno oo aan sameeyay beeshkeeda fanaaniin badan fanaaniin yar oo hadda soo baxda ka mid ah inay reer Muqdisho hadda nala joogo Holland bela la yiraahdo fanaaniin badan waa daan qaar iloobana waxa ka mid ah Yaxya Mandaliif mid yar oo la yiraahdo waxa ka mid ah mid yar oo kala hadda u dhiibay sidaas u soo bixin oo hal mar shuu laga qaaday xagardib wiil yar oo daahir la yiraahdo waxa ka mid ah mid kale oo adiga waa badan fanaaniinta adiga mid yar oo la dhahay jirasana hees wadan aan wada qaadna marka halkaas kuma soo wada koobi kara waxa jira fanaan reer Djibouti hees aan wada qaadna shiish la yiraahdo waa asagana miraha aniga la u dhiibay waayahay markii aan ka tagna fanaaniintaas Faadimo heesaha ugu badan ee aad qaaday magaalada Muqdisho ee aad ku qaaday mise meel ka baxsan heesaha ugu badan waxaan ku qaaday
قاضي مجال مقدشة سبنا كقاضي لكن هذا حنكون على وطن كل ما ندورسنا كنا لا هسا أقول بدل البلد وبدل هالكان كقاضي ولا waayahay marka heesaha ma kuwa jacayl ma kuwa wadani xagee u badan yihiin marka adiga heesaha والله هسا قلت في أبدين جعل وطني أنا سيدو كلو كبدين وحاجر تقوي وطني عن قري عن كسيدا برتي في فيسبوك أنا وحاجر هسا عيارة وحاجر هسا عروسة أنت رأيسا أنت ضبطنا منها أنا سميه سيجة بدي لو هاي وأبوانا يدي بين waayahay marka laga taga dhanka iyo heesaha fanaaniinta qaar ayaa inta badan waxa ay ku soo caanbaxaan dhanka iyo riwaayadaha ma jira adiga faadama ahaan riwaayada aad ka qayb qaadatay isla markaana aad ku jishay gudaha magaalada muqdisho ama meel ka baxsan وحاجر فيلم عصب وعن جرنا مرة وليلة ضل يدد سواية أكو جرنا وطن كولا أني دي كل حاجة كل حاجة شانس ميل إلى الطيب وطن كولا أنكو أساسي أني كل حاجة فيلم عنصر من إلى ضل يدد سواية فين كسوان كجرا هنا أنا هاي مع ماضي فين واقعتي marka horta anigu ma badni dhinaca jilinka laakiin sometimes sida filimada hadda waa sameeyaa markii dhacdo laakiin filim international noqdo filimka ka jira dalida diswara waayahay marka kooxdaada aad sheegaysid adiga hadda filimka aad sameyseen ma filimkii kugu horeeyay baa mise filimo kale iyo waliba muuqaalo kale aad sameyseen ayaa jira way jirta muuqaalo yar oo masrax oo kale aan sameeyay oo la yiraahdo waxaa jirta masraxiyad yar oo aan sameeyay kor howlin gudaheeda aan ku sameeyay oo la yiraahdo macna ka shaqeynaa waayahay haddii aan dib ugu soo noqono magaalada muqdisho ee caasimada faadama sida aad ii sheegtay waxaad ahayd reer muqdisho Soomaan aad iyo aad reer muqdisho aniga waayahay xilligii muqdisho aad joogtay isla markaana inta aadan fan ku soo biirin ka hor ma jira fanaaniin aad jeclayd inaad dhageystay heesooda isla markaana aad ku deysatid sidoo kale aad noqotid fanaanad caan ah والله وين جيت أنا هو تيران تبي أدوش على فنك وحنا كتير سنة أبيد أروح مركز دكتي عندنا فنايمت أنا أذكر وجعل أنا عدك وحكم إذا الله ونحرس تعمر له ويصير تعد ويجري إلى نحرس الجناسية لكن قبلها ويجي فلانين عدك ويسنجر هذه اللي يسنجر حكم إذا أنا يبي نورا waagartay marka ma jiraan fanaaniintii hore fanaaniin kamid ah ama qaar kamid ah heesa aad la qaaday fanaaniintii hore heesa aan la qaado waxaa jira cabdi baadil ibraahim iyo fanaan weyn oo reer Djibouti oo yiraahdo Muuse Shiish oo yaqaanaan dadka reer Djibouti badankood waagartay fanaaniinta hore labadaas fanaan ugu waaweyn fanaaniinta aan heesa la qaaday waayahay inta badan faadama markii aad Facebook aan ka daran ama kugu aragna dad fara badan aniga waxaan aragnaa in aad ereyada macaan isla markaana inta badan ku saleysan dhanka ay wadaniga aad ku soo qortid dad fara badan ay dhahaan faadama inta badan ma garanayna marka taa maxay ku dhacday adigoo fanaanad ah sanadii 1998 ku soo biirtay fanka maxaa marka fankaaga aad kor ugu qaadi waysay si fanaaniinta hadda soo baxay iyo kuwii hore aad ula meel dhigatid heesaaga maama horta fanka waa shaqo adag anigana maama aha carruur haysato sida aad ogtaaba waxa waa maamada howl iyo mas-uuliyad kala saaran sababta fankayga uu qunyaro socod u noqdayna waxay tahay inaan dhankana ciyaalkii aan ka barbaariyo dhanna aan dadweynihii iyo dadkayga iyo dalkayga aan ugu shaqeeyo taasa waxay keentay inuu fankayga xoogaa yaro gaabis noqdo markaan tayd u helana waxaan siiyaa muhiimada koowaad inaan dadkayga xagga wadaniga aan kala hadlo kuma sii fogaado xagga jacaylka sometimes waa ku heesaa jacaylka لكن هذا الشيء يعني أن ذاتك هذا يعني أسوق جدبيه أنت بلانتي حاجة جابنا كسوق جدبيه يعني ذاتك أسوق جيده ذات هذا إيه كلفت يعني فين كي يسقط ويا صعد على ما دام الشقة العيال كان يقولي أيتا وياي سنة كان هذا هسه يوتيوب كجرا هسه الله مقدسة يا جفتا ما مجال مقدسة عاصمة يسقط هذا من سمال كبحثن مال كبحثن أكو قاعدة كمقدسة أنا حيودن بس طلبكم السيارة كي بيجدن بين وحنكون ولا كان وضك عندي جوهلا لكن إن شاء الله وحنجعل هنا السنة كنا دود أريد مع ماذا مجال المقدسة وياي هذا هسه يودن بيعت قاعدة محاكمة ده بلغسياش أنيجا أديو كله قنا يمجع هسه هسه يودن بيورتوي فرق بديه لكن وقت يكون سامحي نقدر حنجعل هنا إبني سوقاته هسه دوخي القعب على هسه يفيديو النساء وهي جعلة سمان وهيس جعيلة أيب الرياض الحكم ده الرياض الحكم ده دوقي وقلقان درجة جعيل دبان محريس
هستان بل محا إن أبقادت أو صوبي يقصد بل يعني حباسنتها ولا هستا waxay ka hadlaysaa jeceylka inuu darajadiisa ugu weyn tahay naxariis ina qofku ku muujiyo naxariis inay tahay waxa ugu wanaagsan jecelka uu ka abuurmay inay tahay naxariis waa gartay inta badan waxaan ka sameeyay qisada waxaan ka turjumaa dareenka bulshada waa gartay inta badan waxaan saa ka qoraa wiil ama gabar uu yimaado igu dhaho barnaamijkaas ama arrinta ay haysata aan rabaa inaad iiga qorto taasa waxaan sameeyaa inaan u qoro heesta hadday gabar tahay aan aniga qaado hadduu wiil yahay aan ugu dhigo wiil waayahay faada marka ugu dambeyn sida hadda aanu ka warqabna fanka waa isoo taraya oo waxa soo baxaya fanaaniin cusub oo yar halka fanaaniintii hore qaarkood ay geeriyoodeen qaarna ay ka fariisteen dhanka iyo fanka hadda marka maxaa lagu tilmaami karaa bal aragtidaada wallahi fanka hadda kulay waxay dad dhalinyaro aad u caaboona soo galay waxaan hadaysa dhalinyaradaas da'deeraysa inay u dhumbilaa fankeena iyo maxay xasuustiisii taasatan dadka dibadaha ku nool hadii aysan jirin balan cusub ama heesaha iyo muusiga casriyeeya ama si shaqeeya luqadda Soomaaliga inay faraha ka bixinayaan aaminsan dadkeena dibadaha u qaxan laakiin dadka qaar waxa ay ku catabaan in heesaha hadda la qaado oo cusub ereyadooda ay iska yihiin hadallo iska caadi ah halka fanaaniintii hore iyo heesihii hore ay yihiin kuwa murti macna xambaarsan horta difference u dhaxeeya heesihii hore iyo heesahan sida ugu dhaxaysa farqi dadkii hore iyo dadkan heesihii hore waa runta murti iyo sarbeebooyin badan ku jiray laakiin hadda abwaaniinta hadda jirana waxa ku qasbay inay heesaha saalaan af Soomaaliga xoog u yaataade iska badaa kuwa dibadaha jooga ciyaalka Muqdisho jooga ayaan fahmi karin heesihii hore oo kala hadaan qorno waa gartay taasa waxay nagu kaliftaa inaan qorno hadal aan soo jeecinay hore ka fahmi karto marka differencega aan kulay qaano ahaan aan dareemi karo wax waan ku heesay inay tahay micnaha heesii hore inuu la sameyn jiray in sarbeebooyin maxay sida geela maxallahay dhulka wax uu soo qaata haddana aan usoo jilcinay oo aan u dareensiina dhalinyaradii inay dhaqso wixii ku fahmaan waxaan ka heesayn inay dhaqso fahmaan waayahay faadama waqtiga gabagaba ah ugu dambeyn dhageystayaashii weliba fanaaniinta ku dhageysanaya maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa horta ummadda afka Soomaaliga ku hadashay in Ilaahay horta bal qalbigooda isku soo jeedo isku soo dumo waxaan dhihi lahaa dad jecel oo sidii Soomaaliya wada aad bay isku jeceshahay laakiin noqdo dad u dhagan gul midnimada Soomaaliyeed aan dhihi lahaa isku duubnaada insha Allah Ilaahay maxay tahay naga dhigo kuwa guuleysto oo dalka Soomaaliya noqdo dalalka dunida ugu horumarsan aad u mahadsan tahay Faadima dhageystayaasha aniga heeskee aad nooga tagaysaa ama anagu macsalaameynaysaa waxa idinkaga tagaysaa sanad jecel la yiraahdo Muqdisho oo ah مقدشة حقاقي حفظهم قرحونا حسوستي ذلك مقوين حمرت بيتي حقاقي بكارها حدوذي تعيك دكي وحانا يا بغيبتات أكسو قبقبين لها برامج كيجي آد بانيجي السلام يا إذا عد ورياش القصة بيقانا دي دماغ برباها سيمب حبيبتي